assalaamu calaykum. xidhiidhka uu boqorkan ingiriiska ee cusub ee malaha aan kursigaas ku sii raagayni uu la leeyahay islaamku muxuu yahay? intee ayuu la eg yahay? maxaase laga aaminsan yahay? al-jasiira ayaa ka qortay mawduucan maqaal ay kaga faalloonayso. boqorkan cusub ee ingiriiska ee charleska saddexaad waxa uu xogagaal dhow yahay islaamka. wargeyska Middle East Eye ee ingiriiska laga leeyahay ayaana isagoo qodobkan ka hadlayay yidhi, isaga oo dabcan ka jawaabaya sida ay dad badani aaminsan yihiin inuu si sira muslim u yahay oo islaamnimadiisa uu qarsado boqorkaasi. Charles ma aha muslim islaamnimadiisa qarsada ee aqoonta uu islaamka u leeyahay iyo sida uu ula dhacsan yahay aad ayay u weyn yihiin. waxa uu sidoo kale boqorkaas Charles sheegay intii uu amiirka ahaa imaamka masaajidka Cambridge-na uu xaqiijiyey inuu afka carabiga baran jiray si uu qur-aanka u fahmo. khudbad uu jeediyey oo ciwaankeedu uu ahaa dareemidda qudsiyada ay leedahay in la isku xidho islaamka iyo galbeedku ayuu ku tibaaxay, isaga oo ka abbaaraya dhanka aragtida uu islaamku ka haysto nidaamka dabeecadda hadal ahaa. waxa uu islaamku ka caawinayaa galbeedka inay dib uga fakeraan oo ay hagaajiyaan la tacaamulka iyo daryeelka dadka iyo deegaankaba. isla aragtiyihiisaas isaga oo sii sharaxaya ayuu ku xusayaa khudbad uu ka jeediyey 2010kii rugta Oxford ee daraasaynta islaamka hadal ahaa, inta aan ka aqaano asaasiyaadka islaamka, mabda'a aadka muhiimka u ah ee ay tahay inaynu u daymo badinnaa waa in adeegsiga iyo ka faa'iidaysiga dabeecaddu ay xuduud leeyihiin. xuduuddaasina aanay ahayn tu macni darro ah ee ay tahay xuduud ilaahi ah. taasina ay keensanayso waa haddii sidaan qur-aanka u fahmay ay saxan tahay in muslimiinta la amray inaanay dabeecadda ku tacadiyin. mar dambena isagoo sifaynaya islaamka ayuu yidhi, islaamku waxa uu haystaa mid ka mida kaydadka ugu waaweyn ee xikmadda cugan iyo aqoonta ruuxiga ee aadamuhu uu haysto, waana habdhaqan aynaan ka reer galbeed ahaan dhaadanayn maadaama aynu dhanka maadiga ah u janjeedhno. waxaa sidoo kale laga soo tabiyaa hadal u dhigan sidan: xaqiiqada naxdinta lihi waa inaynu meerahan dhulka la wadaagno makhluuqyo kale oo sababo rasmiya u jira, suurana aanay ahayn in aynu iska dhigno sidii kuwo keligood meerahanba ku nool oo aynu iska soo qaadno sidii kuwo ka maarmaya uunka kale ee nolosha isu dheelitirkeeda dhammaystiraya. islaamku weligiiba intaas wuu dhaadanaa. inaynu casharkaas ismooganaysiinaana macnaheedu waa in aynu caqiidada ilaahay gaabis ka gelayno. waxa uu in badan ka sheekeeyey ilbaxnimadii islaamka iyo nidaamkii waraabineed ee Andalus ay sameeyeen 1200 sano ka hor. waxaa sidoo kale la xusaa in aqalkiisa ku yaalla degmada Gloucestershire ay ka buuxaan dhirihii soo jireenka u ahaa muslimiinta iyo geedaha qur-aanka ku xusani. sanadkii 2006 mar uu booqday jaamacadda Ashar ee Qaahirana waxa uu dhaliilay sawir gacmeedyo qolo Dheenmaark ku dhalatay ay faafisay oo ay xabiibkeenna suuban ugu jeesjeesaysay. isagoo qodobkaas ka hadlayana waxa uu yidhi, astaanta dhabtaa ee muujinaysa bulshada ilbaxa ahi waa qadarinta ay u hayaan dadka laga tirada badan yahay iyo dadka ajaanibta ka ah. loolankan argagaxale iyo cadhadan u dambaysay ee ka dhashay sawir gacmeedyada Dheenmaark lagu sameeyey waxa ay muujinayaan halista ka dhalanaysa in aynu ku fashilannay dhegaysiga iyo ixtiraamidda waxyaabaha qaaliga iyo muqadaska u ah ummadaha kale. dabcan wuxuu la hadlayaa Yurubiyaankaase. xataa waxaa la soo wariyaa in 2014kii markii uu qofkan lagu magacaabo Salmaan Rushdi soo saaray waxaas buug sheegaa ee uu bixiyey aayaad shaydaaniya, fatwooyin ka dhana qofkaasina ay soo baxeen. laga codsaday amiir Charles inuu difaaco qofkaas, uuna ku jawaabay in aanu marnaba taageeraynin haddii uu qof liido qof kale qanaacooyinkiisa ugu waaweyn. isagoo ka hadlaya islaamka iyo galbeedkana waxa uu yidhi, haddii ay jiraan qalad fahmiyo badan oo galbeedka ka haysta dabeecadda islaamka waxay sababaysaa in aynaan ogaanin ka reer galbeed ahaan abaalka ay ilbaxnimadeennu u hayso caalamka islaamka. isagoo marka hadlaya dhaqaalaha iyo islaamkana waxa uu yidhi, waxa aan filayaa haddii la dhaqangeliyo xaaraantinimaynta geedka go'anka ah ee adag ee islaamku wax rimay ribada ahba nidaamka dhaqaale ee wakhtigan caalamka gadhwada deynka saddex jabiska ee aynu jiirasha soo socda uga sii tagnay ee uu sababay sida xawliga ee loo adeegsaday raasamaalkii dabeeciga ahaa ee arladu waxa uu noqon lahaa ribowi aan sinaba loo aqbaleen. isagoo sii wadana waxa uu leeyahay, qodobkaas waa ka sababay in nidaamyada maaliyadeed iyo ganacsi ee ku dheggan mabda'yadaas islaamku uu jeediyey ee seeska u ahi inay u badan tahay inay salka u dhigto habraac akhlaaqda uga dhow kuwa kale oo natiijo cadaalad ku salaysan soo saara. Charles isaga oo qiraya sida uu islaamku u kaabay aqoonta iyo fanka galbeedka ayuu ku xusay khudbaduu ka jeediyey jaamacadda Ashar 2006 waa in aynu maanka ku haynaa reer galbeedow inaynu abaal ugu hayno aqoon-yahanadii islaamka inay iyaga dartood rogaheenna aqoonta soo jireenka ahayd ay ku noolaayeen
waayihii casriyadii mugdiga ahaa ee Yurub. Isagoo mar kale ka hadlaya aqoonta xisaabta iyo saamaynta ay muslimiintu ku leeyihiin ayuu leeyahay qof kasta oo tuhun ka qaba sida ay islaamka iyo muslimiintu jidbixiyeenka ugu noqdeen hinqashada Yurub, bal ha tijaabiyo inuu xoogaa laylis xisaabeeda oo fudud sameeyo isagoo adeegsanaya xuruuftii tirada ee Roomanka ahayd. Ilaahay ayaan ku mahadinayaa xuruufta xisaabta ee Carabiga ah iyo weliba qaabka uu ku yimi xarafka eberka ee ay aqoonyahanadii xisaabta ee islaamku ku soo biiriyeen habfakirka Yurub. Hadalladaas oo dhan marka aad u fiirsato waad dareemi kartaa sida uu ninkaas odayga ahi ugu dhow yahay islaamka iyo heerka ay gaadhsiisan tahay aqoonta uu leeyahay islaamka, waxaana aad ka dareemaysaa sida uu ugu qirayo islaamku kaalinta uu kaga jiro jiritaanka Yurub iyo saamaynta ilbaxnimada maanta uu caalamku gaadhay ee in badan oo xataa innaga dhalinteenna ahi ay moogan yihiin. Boqor Charles kan saddexaad wuxuu xambaarsan yahay naanays ama aan idhaahno ee taytal kale oo u sii dheer boqornimadaas oo ah ilaaliyaha diinta iyo korjoogaha ugu sarreeya ee kiniisadda Ingiriiska. 30 sano ka hor mar uu isku dayey inuu muujiyo oo uu ka tarjumo inuu u taagan yahay kala duwanaanshiyaha diimeed ee Ingiriiska ka jira, ayuu taytalkaas isku dayey inuu u beddelo ilaaliyaha diimaha halkii ay ahayd ilaaliyaha diinta ee kiristanka un ay ku ekayd xaajadu, balse aad loogu kacay oo mawjado ay ku ogsadeen. waxa uu taytalkiisaasi ku eg yahay kiniisadda ama madhabka diimeed ee Angalikaanka ah, balse waxa uu muujiyey inuu aad ula dhacsan yahay islaamka iyo kiniisadda ortodogoska ee bariba, waana laba diimood oo ka baxsan kiniisadda ama habdiimeedka Angalikaanka ah, isaguna uu si u soo dhoweysanayo dadkiisuna ay si u diidan yihiin. si kastoo loogu kacayba boqorkan Charles aad ayuu u muujiyey sida uu ula dhacsan yahay islaamka iyo bulshooyinka muslimiinta ah ee Ingiriiska ku dhaqanba, balse markasta waxa uu waajahayaa mawjadda islaamofobiyada ah ee caalamka galbeedka waayahan ka jirta. 1993 ayuu isaga oo amiir ah jeediyey xataa hadal u dhignaa waxyaabaha caalamyadeenna diimeed ee islaamka, kiristanka iyo yuhuudiyadda midaynaya inay ka badan yihiin waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin, oo dhammaanteen aynu nahay ahlu kitaab. ama haddii aynu hadalkiisaas toosinno dhammaanteen aynu nahay hal diin oo dhanka Ilaahay ka timi, 3 shareeco oo xilliyo kala duwan ay ka koobnayd, oo labana uu aadamuhu faragashaday, midna uu Ilaahay ballan qaaday inaanu aadama taabanayn oo uu ilaalinayo. xataa qoraaga buugga Charles at 70 ee Robert Jobson ayaa ku xusaya dhiganihiisaas inuu boqorku aad ugu janjeero dhanka Falastiiniyiinta ku hoos nool gumaysiga Israa'iil. waxa uu boqorkaasi 2006 aasaasay xarun lagu tababaro dhalinta muslimiinta ee Ingiriiska, sidoo kalena uu korjooga ka noqday rugta Oxford ee daraasadaha islaamiga ah. khudbadiisii ugu caansaneyd ee ciwaankeedu ahaa islaamka iyo galbeedkana uu 1993 ka jeediyey. waxa uu xusay boqorkan Charles isla sanadkaas 1993 in Qurduba ay ahayd magaalada Yurub ugu ilbaxsan 400,000 oo kitaab oo yaalay maktabadda khaliifka oo keliya ahina ahaanay Yurub oo dhanba oolin. hadallada ninkan odayga ah laga soo tabiyaa way badan yihiin oo ka dhammaan mayno, ee waxaynu ku soo afmeeraynaa hadalka uu ka yidhi waqti xaadirkan islaamka iyo jiritaanka caalamka oo ah islaamku maanta waxa uu ina bari karaa hanaanka aynu u fahmi karno uguna noolaan karno caalamkan oo suuban, waana qodob aan laga helaynin kiristanka. islaamka gudihiisa ayuunbaana lagu awoodayaa in midnimada koonka lagu ilaaliyo. cajiib. hadalladaas boqor Charleska saddexaad dhammaantood waa kuwo qiraal iyo garowshinyo daarin gefka islaamka laga galay gudaha ku wata, xilli ay barbaarteennii in badan oo ka mid ahay hadalladaas galbeedka ee islaamofobiga ahi dhagabarjeeyeen, oo ayba aaminsan yihiin in islaamku noloshaba aanu kaalin ku lahayn. factabiruu yaa ulil albaab. wasalaamu calaykum.